أدونك أوركي سنة سيبا إلهي لي واشان شيء وشانتا إلهي دوني دا كسفاية أرك صفة كوادة إلهي وسيه وحويا واللعب وعيار عيارتا وحلا إله ذا حركات دقدقاقا عرورتو سميسي أن قصدك لهين عرورتو دوبا يدسدستا غوريا سميسا وحنبا سميسا آخر كلام هو دبيانا موسكا دقاقا وح قصد لماها أدونك أنا قوة رسالتي با إلهي وحنا وضان وعيار با إلهي لعب كلبادا إلهي كسفاي وحويا واللهو أي ما يلهي الناس ومدتك مشغولية انت بدن لهوغي لعبكو علماء بدو waxay dhaadaan lacibkuna waa ka caruurta lahwiguna waa ka dhalinyarada ama dadka rooroon si kale markaynu tilmaamno lahwiga waxa lagu tilmaamaa hadiya koor ka qulubta bini aadamka mashquuliya مثلا shaxba dadku ciyaara odayadii hore shaxda maanta oo dhan faraha boodka kula jiraysa maanta oo dhan kaasaan degiye kaasaan guureeye kaasaan qaaday baad wadaysaa waad fakaraysaa intaad ku jirto oo waad mashquulsantay marka madax iyo maskaxdiba ku daasho aakhirka faruhu baad boodka tumaysaa adigoo waxba sidanin xalamada dhalinyaradu jaskan laadhuudan waxaan la ciyaaro kale waa anwaaci lahu jas baad ciyaaraysaa maanta oo dhan waad fakaraysaa saad u guuri lahayd ee boqorka saad u qaban lahayd iyo kan saad u dili lahayd madaxaa ku xanuunaya hadhowna faramarun baad kala kacaysaa wixii aad ku mashquushay madaxu kugu xanuunay wax qiimo oo nolosha ku leeyahay ma jirto ilaahay markaa wuxuu leeyahay war adduunka kani adduunkana joogtaan waa laacibun cayaar caruureed walahwun dadka waaweyne waxay isku mashquuliyaan ee madaxooda mashquuliyaan faa'iidada ku jirin iyo wasiinatun isqurxin dhaldhalaal بني آدم كوس كدل دلال جعلي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها بإلهي لك واحد قرص عربة ورقروح يوم ما نقدقنا ساتك إنه هذا شوقنا واضح تحسيد اللون دلالي حتى دام وحال مرينا صلاة وأخوة صح حساب بس كسيديس أحبس كيف بدليها لكن بني آدم كزينة جعل والزينة بإلهي يدومكم وقروح إيه وتفاخر بإلهي فان سغفان أنا كارير بدن أنا كارير فيعل أنا كا حول بدن أنا كا مقعوين أنا كا علمي بدن أنا كا قوي حسن أنا كا افتهنسن أنا كا قوي حسن أنا كا في صوماليا قان أنا كا بدن بشو فانو إنا الصفانتان تفاخر بينكم وفان نحدي نابا إلهي كشناد إلهي كسفي وابحي وتكاثر في الأموال والأولاد تكاثر وفرشاقشو العفور يحول كفرشاقته أنا كا طول بدن أما كا عفور بدن أما كا وحا بدن إيا أنا كا دغال بدن مفسرين تبع الإمام القرطبي وحصان نقلين يا ولي ولعب كاللعب السبيان بويل وعيار عفورات كاللمدة ولهو كاللهو الفتيان واسم مشغولين يا عيار دلن يرد وحي عيارتا وزينة كزينة النسوان واسقر قرحين وسيد الدمر وكلا وتفاخر كتفاخر الأقران والسقفان دتك اسكداء دا هيسي سقفانون وكلاونا وتكاثر كتكاثر الدهقان أو الدهقان وفرشاق شحول الله يسقف فرشاق تسيد الدجارته دهقان كي الدهقان وتاجرك سيدا قوة مال قبانك ninkan maalqabeen aad arki waxa laga yaabaa isagu wuxuu cuni lahaa iyo ku dhalay wuxuu cuni lahaa ilaa kiisa toddobaad uu dhalaa wuxuu cuni lahaa inuu haysto haddana ma fadhiisanayo waayo isla hebelka badi mid kaloo isna waxoogaa haysta ayuu mashquul ku yahay si uga tiro badiyo idan ilaahay wuxuu ina leeyahay iclamu war ogaada baa ilaahay leeyahay waxaan idin ogeysiinayaa alla idinka rabaa inay ogaataan noloshan adduunyo waa intaas baa ilaahay leeyahay intaa midna waxtar ma leh inaad cayaarto sida caruurta faa'iido ma leh inaad dadka waaweyn ismashquuliso faa'iido ma leh inaad faantid faa'iido ma leh inaad farasheegatid faa'iido ma leh
inaad iska dhaldhalaalisid faa'iido waxaa faa'iida ku jirin baa ilaahay tilmaamaya inay adduunkaniba yahay culamada badh baa waxay idhaahdaan waxaa lagu fasirayaa xagga zawaalka iyo fanaaga xagga tirtiranka iyo baaba ay waxaa kala mid adduunka waad wadi ood ka dhiman maxaad kordhisay wax kaa raacaya maalintaad soo gashayna maraa lagugu duubay maalintaad ka baxaysana maraa lagaaga duubaya intaad meelaha joogto baad faanfaanaysaa hadhow cid warkaa haysaaba ma jirto 3 casho ama 4 casho lasii baroordiqiya lagu xasuusan yahay ayaa laga yaabaa in lagu xasuusan hadhow cidda mana ku xasuusan mayso xabaalaha dadkaa tirada badiyey ayuumad ka mid ahaanaysaa ilaahay markuu intaa tilmaamayba wuxuu ku tilmaamay waxaynu bini aadamka wax loogu sharxo waxa u fiican waxa uu arkaya ama maqlayo yani more practical inuu noqdo Soomaalidu waxay yidhaahdaan bini aadamku waa indha ku garaadle wax caqliga gala haddii lagu sharxay inaad horeba u fahmi weydaabaa suurtagala laakiin haddii lagu yidhaha waa kanoo indhaa lagu saaro warku wuu dhammaaday waxayna ku garaadlaa tahay ilaahay wuxuu markuu intaa inoogu sheegay ayaa indha ku garaadlanimadeennina la tilmaamaya كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وروح لم التهيبة إلى هلي سفدد وحويان كمثل غيث سيدي الراب وحقرقاره غيث وحلا إلى الراب النافعة غاث يغيث وهو قرقاري الغيثنا ومضر أردن ما هي مضر كالنفع قاله كالقيداء يبات وحول بصوصارة كمثل غيث سيدي الربوح سبحيي وأعجب الكفار نباته وأياب جلسي كوا بيرليدا درتيسو نبات كيسو وحي وصوصاري نكي بيرليدا هوا أشقراري با إلهي لي وكفر حي بيرتو سي أبح ضي وسقودو بدعضي لكن حكا دبايا ثم يهيج فتراه مصفرا بإلهي ثم يهيج واقعا أما ثم ييبس وإنجيجا وعدنا على مركه هره كدبنا وإنجيجا فتراه مصفرا وحذر كيسا يساقو قاري أما يساقو اسمي دبدلي ثم يكون حطام كدبنا وحو أهان حطام أما هشيم دماه بربر حطامكو وصيغة المبالغة ووح بربري أو بربري بالوضع تصالها دون كل ينسي مركا وحويا وسيد الروب كأدا دول كما شيء دبتنا الدوق في عصا صارة وقت يرمرك اللي جوجا عاد عدا ما الضبايل ما وحكون عام وذا قاره كدبنا مدك ويسبدله وعضاده كدبنا ودمو حنصص ونقضه وحد صار نقضه أدونك وين تسبى إلهي لي ساس ولا مديا لكن إلهي محين لي وفي الآخرة الدنيا أريقو أفعر بيحان من دنا إلا كاني أو من الدني إلا كاني تي دويت ويعني قيمة اللي دتو دو أو قريب كاه أما تي اللي دتي ودنيئة شكل هذا نوت المامو waxaa lagu tilmaamayaa adduunka kani waa caynka marka tan dhow waxa la yiraahdaa waa waxa geerida ka sokeeya geerida wixii ka dambeeyana waa aakhirade وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وآخرنا با إلهي عذاب كلل يدم بداف اللي يرى اللي هانشيو أياجنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نولش الدنيا ما هبا إلهي إلا متاع وحيرا لغو راحيستو الغرور هذا ترى غرور هو شيطانك وكي وحكديني غرور هو عملية لفتي دي عملية دي كدينت الوضوء والوضوء وكلوية الوقود والوقود وكلوية وقودكم وده حابد إلا شدي وقودكم نوا هورنتي شدستي وضوء هو وحي هو يسيسنيه وضوء هو ويسيسي لفتيسي
متاع الغرور بايلهي كوكتسون وحكر راح يستوي ينبالي أدوك قبل يسبا ومد مغرورة مد كتسون وحي وكر راح يسر لها ينبالي لها كنت الماما يني أدون تاي متاع الغرور والراحة واحدة قيسة أما راحة اللقوية آيات كلا إلهي وحكوت الماما يوضرب لهم مثلا تدك تصالوي البايلهي مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض سيدي روب عرك كيمي أردلك كو قسمي أو دبتنا نرصو صاري كدبنا فأصبح هشيما بايلهي نقضي هشيم دما عاوزكو مركو انجيجا مركا الدنبا وحو نقضا محي دما بو نقضا حنصصبو صباحا دما النقضي با إلهي لي دما قاسو تدروه الرياح ضبيشو أي ريح له دما ضبيشو أي قاضو وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا با إلهي مركي ورهوي بين حولها يعرورتا يوحنو دمي وزينة الحياة الدنيا وأنا نرشع دلدلال كيدي ما هدبتيدي نرشع دبتيدي ما هي والدلدلال كيدي دبتيدي وامحي والباقيات الصالحات خير كو هذا ونكسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنك الدرهم كي سبحان الله كأين لفحا دولار كي سبحان الله إلهي وحلي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وردوا عياري اللهو بايلهي آخرة سه لهي الحيوان إذا نولش أبالي نولل حتى تربطه تدبا نولل تاني نولل ماها مقع موضته تنولش هو آخرة إلهي لي سبحانه وتعالى markii ilaahay ogeysiiska ayna siiyay cilmiga Allah inoo sheegay ayaa ilaahay nabigiisa si gaar ah ula dardaarmay Muhammad alayhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu nabiga u tilmaamayaa qaar badhbadhaanaya darki doontaayo ziinatu hayati dunya isku mashquuliyay adiga se maxaan ku leeyahay baa ilaahay yiri wala tamudanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلهي النبي يسيب مركا الله هذا يا وحولي إيش هوتاغي وحنا نغر حيني أزواجا منهم كوحو أصناف يا كمدا أو زهرة الحياة الدنيا زهرة وحلا إلى هذا فلاور أبح نولولادا أبح وها معروفة أنتو قارين ودعي دوره صح كما قيد أبح وسك الساري يا دركت أبح مسح هذا نرتا ولما أبح بيد هذا وحور سادوية قصدي قوام مدها قيد مركو أبح بحية كذب مدها بحية مركب مدها على قصنا أبح وضاتا إلهي وحلي زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه كون أبح دون أن نكو امتحانينه يا مسلم نسان ويتحان نبا إلهي لي قرد كي أهلين بوين لا يتحامه إذن إلهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حلي وقوة إشهدوا يراح راعي وأبا حاير الدمية ويغلو إيغا يبنينا إلهي ومهاد مقانية إن كالين سيدا أبو حقوق قرح بدنيهي أي أدون كان إلهي كنت المامة يا النبي يقول يا الدنيا حلوة خضرة وتم معان وعقارب با إلهي أدون كان ضدور لما يسكو هيستو حجم يسو ينتو لك عند الله سبحانه وتعالى إلهي بولي إنه ورمي وحلي قل متاع الدنيا قليل والرحاء الدنيا ووحي يربى إلهي والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة يتضنبع خير بدن نك الله كعب صدا وردوك حتى هداد بربرسته وما المه ما المهنا
cunadaad maanta duhurkii cuntay haddaba dhadhamin karaysa bise dhadhanka waxay lahayd intay afka ku jirtay intaa unbay lahayd soo maaha weligaaba cunno macaan baan cunay dhoo kan dheh waa intay halkaa marayso halkaa hadday gaadho dhadhan ma leh halkaa markay marayso cun oo dhan waa isku nooc garawga iyo biisada iyo solayga iyo maxaa la yidhahdaa suwaarka iyo galleyda iyo faracada waa isku mid markay halkaa gaadhaan maxay kala gedisan yihiin inta ay carabka iyo labada daan dhexdooda joogaan nolosha adduun oo dhammina waa sidaa haddaad 1000 sannadood soo raaxaysanaysay oo sanadka u dambaysa lagugu yaro geejiyo 1000 kaa xasuusan maysid maantoo dhan haddaad 10 sannadood soo caafimaad qabtay oo 2 maalmood sakaraadka lagugu yaro dhigo labadan unbaad dhadhaminaysaa waxa horoo dhami iyo wixii aad caafimaad ku soo jirto dhadhanan ma leh idan nolosha adduunyo dhan waa sidaa nolosha adduunyo dhan qul mataacu dunya qaliil baa ilaahay nolosha tan raaxadeedu waa wax yar raaxadeedu waa wax yar waa wax yar sakaraatul mawt iyo geeriyiba ka dambayso haddaanay kaaba tegin intaad nooshay ay ka dambayso maxaa wax tara wixii aakhira wax gooya nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo u sharxaya dadka dunidu siday u egtay xaqiiqadeedu maxay tahay ayaa wuxuu yidhi ina maطcama bni aadam duriba lidunya maala nada bini aadamka ayaa adduunka tusaale looga dhigay oo waa maxay مثلا بما خرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه فانظر ماذا يصير رواية كقاركود نين الصحابي ضحاك بن سفيان لو رجل بيقولي عنا ذا ضوام حي الرسول وعدي عانه والله ودي وقفي عناية مركا عربي هيلي كريسي أما أدون كمان تشوغا بالعنوين وقفي عنه وعدي عانه بيقولي الرسول كذبنا محي نقطه waxaad ogtay bay noqotaa buu yidhi afka muu soo marin raacdi caan weligaaba isku gur isqushu baa tegaysaa soo maaha maxay noqotaa buu yidhi wixii aad ogtahay bay noqotaa buu yidhi wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunku bini aadamku wada waa sidaasoo kale wain qazaxahu wamallaxahu buu nabigu yidhi weligaaba tawaabisha ku badi qazaxa taabilkaa la yidhahdaa tawaabisha soo mataqaaniin bahaaraadka waxaan cunada dhadhanka loogu yeelo xawaashka iyo waxaan lagu dardaro kamuun iyo kamsare iyo waxaan islaamu ay ku daraan baashu si ay dhadhan macaan u yeelato weligaaba buu nabigu yidhi qazax u samee dhandhanaan iyo macmacaane weligaaba milixee baa la yidhi fandur maa yasiiru ilayh aakhirka marka aad musqusha tagto waxay noqonaysuune waxaaba laga yaabaa say u kala dhandhanaanayd inay hadhowba kala fool xumaato sidaa daraaddeed nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaad doonta ku sameeyo waxa kanunbay soo baxaysaa sidanunbuu noqonayaa ma'aalkeedu buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba rabbi wuxuu ogyahay inaynu adduunka iyadoo saa inoogu warramay haddana inaynu jecel lahay markaasaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kutubtuu soo dejiyo oo dhan inuu masaladaa dadka ugu sheegay maaha masale hadda bilaabantay baa ilaahay leeyahy intayd bini aadamka lala hadlayay waa looga warramayay tan markaasaa innagana layna faro sunnadii nebiga ay tahay ugu yaraan 7 walba inaynu mar akhrina aayaadkaasi oo dhegaysano markaasay weliba sunnada ka mid tahay haddaad habeenkii witirsanaysana aayaadka lagu witirsada inay ka mid tahay suuratu laclaa sabix isma rabbika laclaa soo inta badan jimcaha ma akhriyaan a'immada masaajidku waa xasuusin layna xasuusinayo inta badan alaclaa iyo ghaashiya ama qaaf iyo kuwaasuu nabigu ku akhriyi jiray jimcaha dadka aakhirana la xasuusinayo adduunkana looga digayo وتركنا سنة كمتين تسكيا وترسطو سورة تنخردا إلهي سورة محكولي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى waxaa door bidaysaan baa ilaahay yidhi noloshan adduunya idinla macaan fi suxufi luula baa ilaahay yidhi masalada tani iyo kuwii hore la soo sheegayba suxuftii hore ku qoranta kutubtii hore ilaahay soo dejiyay waraaqihii hore suxufi ibraahim wa muusa waraaqihii nabi ibraahim iyo nabi muuse la soo siiyey kuwaasay ku qoranta baa ilaahay leeyahay bini aadam weligiiba masaladan looga digayay ayaa rabbi inoo tilmaamaya ilaahay waa inoo dardaarmaya wuxuu ina leeyahay فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم وليئد ضغن نرشى الدنيا ولا دنيوك خياما يوك قادا ولا يغرنكم بالله الغرور ولله الشيطان كويدارن غرور هو الشيطان شيطان يانو إلهي كويدارن ما دام ورك عينك هي waxay mudantay qof kasta in looga digo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ah ayaa nin dhallinyaro abuu rabaa inuu u dardaarmo innagu dhallinyarada maxaynu ku nidhaahdaa waryaa shaqayso nin noqo raga adduunka waa la tabcadaaye tambaynu inagu kala dardaarnaa ninka dhallinyarada waa fii muqtabali cumri waa noloshu hadda bilaabaya hadduu ka fakerayaa guur iyo xoolo dhaqa iyo waa baabkii adduunyo kaasi waa iska maftuux binaadku waa ku abuuray innaguna kaasaynu kala sii dardaaranna ilaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhallinyaradii saxaabada muxuu kala dardaarmayay cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah masaajidku iska seexan jirayba nin dhallinyaro ah ayaa wuxuu leeyahay nebigaa garabkay qabtay waa litambiih in waxarka loo sheegayo uu si fiican isagoo sii jeeda inaanu warka qaadane isagoo soo jeeda inuu nabiga warka ka qaato calayhi salaatu wasalaam nabiga garabka ay qabtay buu yidhi dabeetana wuxuu igu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib aw cabiri sabiil ibnu cumarow kun fi dunyaa adduunkan waxaad ku ahaataa kaannaka gariib stranger inaad tahay nin gariib ah magaaladaad deganayd ee dhulkaaga haddaad ka safarto meel kala tagto waxa ugu badan aad ka fakeraysaan waxa weeyaan wixii aad meeshaadii ku gaari lahayd inaad meesha ka qaadato kama fakeraysid meesha daaraheed iyo dhismaheed iyo waxeedan kama fakeraysid nabigu wuxuu yidhi war adduunka kan qariibku noqo oo asalku waa maxay reer nebi aadam janna loogu talagalay aadam baa la itixaamay waa la soo saaray waxa la yidhi adiga iyo inta dhashaada fiicnaata halkaasaa ku noqonaysaa inta kharibantana meel kala la qabadsiinaya idan adduunku waa meel aad qariib ku taho aad ka sii tegayso meel kale aad u socotaa adduunyada dadka kale waxba ha eegin adigu intaad joogaysaa kana ugu badanay 60 iyo 70 iyo 80 ninka boqol jira waxaanu idhahnaa wuu dhaafay qarni buu jiray adiga adduunkaagu de waa inta kale dadku noolaanaya maxaa kaa galay dad kale dunida sii joogay adiga shaqadaada ma adiga adduunkaagu waa intaa 60 sano 50 sano 70 sano 80 sano adiga intaas ku adduuna inta kadibna waa tagtay intan yare sanawaadka aad meesha tan joogayso waxaad u dhaqantaa buu nabigu leeyahay kun fi dunya kaannaka gariib qof gariibayna tahay oo aan meeshii ugu dhashay aanu joogin aw cabir sabiil ama qof jidka gudbaya qofka musaafirka jidka gudbaya miyuu ka fakaraa meeshan suu balaangarayn lahaa dad imika safar tahay oo geed ku soo baxdo aad tiraahdo waa daashay yara seexo miyaad ka fakartaa aniyo geedkana wax ugu fiicnaan lahaa in daar wanaagsan laga dhiso maya waxaad ka fakartaa talo xashiishkan iska yara dulkisaa meesha yara seexatide marka fikirkaagu dhammi wuxuu ku koobayay bal inaan qodxa iyo waxay ku mudmudin inta yaraad meesha jiibsanaysa inaad kala yara xaadxaadato waad seexato kadibna aad iskaga dhaqaaqdo adduunka sidaa uga fakar baa lagu leeyahay waxaad uga fakartaa meelaad maalmo yar sii joogayso aad wax ka xaadxaadato dabeetana aad ku tala gasho inaad maxay ka sii soconayso